qisadan waa dhab waana qiso muujinaysa awoodda jacaylka dhabta ah waa askariyad jacayl daran u qaaday mid kamid ah maxaabiistii ay ilaalada ka haysay warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa qoraysay in booliiska dalkaasi ay gacanta ku dhigeen maxbuus u dhashay dalka Syria oo baxsad ahaa kaasi oo ay la socotay askariyad u dhalatay dalka Switzerland oo jacayl daran u qaaday kana caawisay sidii uu uga soo baxsan lahaa xabsigii uu ku xirnaa afayaan u hadla booliiska magaalada Milan ayaa sheegay in saraakiishu ay waayadanba ku raad joogeen maxbuuska oo lagu magacaabo Xasan Kiko oo 27 jir ah iyo askariyad lagu magacaabo Angela Magdisi oo 32 jir ah lamaanahan oo tan iyo bishii February ee sanadkan baxsad ahaa ayaa lagu qabtay dhismo ku yaala degmada Romano di Lombardia oo ku taala gobolka Bergamo ee waqooyiga dalka Talyaaniga waxaana la sheegay inay muddo dhowr isbuuc ku sugnaayeen degmadaas iyadoo maxbuusku uu qorsheynayay inuu ka ambabaxo dalka Talyaaniga kuna laabto bariga dhexe wuxuuna gacalisadiisa ku qanciyay inay horay u raacdo oo ay u bareeraan qatarta wadanka Suuriya si ay uga mira dhaliyaan jacaylkooda sida la yaabka leh ku bilowday lamaanahan ayaa isku barta si cajiib ah Mrs Angela waxay ahayd booliis gaar ahaan ilaalada xabsiga oo ku xirnaa Xasan waxaana indha daraandar ku rida wiilkan maxbuuska ah ee Xasan oo lahaa qaab dhismeed iyo dabeecad wanaagsan oo uu si fudud ugu soo jiiday gabadhani askariyada ah Angela oo uu ka awood batay jacaylka ay u qaado wiilkan ayaa go'aansatay inay xiriir la samayso isagoo xabsiga ku jira kaasoo ku bilowday si qarsoodi ah waxyaabaha sheekadan xiisaha u yeelaya ayaa ah sida xirfadeysan ay uga soo saartay xabsiga kadibna ay iskula baxsadeen iyadoo aan la dareemin xitaa shaqaalihii habeenka kula qornaa shaqada Angela kama ayan warhayn qaabka ay wax u dhaceen Angela oo adeegsanaysa khibradeeda ciidan ayaa xabsiga ka saartay jacaylkeeda kadibna waxa ay jareen xadka uu dalkaasi la wadaago wadanka Talyaaniga oo ah halka haatan lagu qabtay gabadhan ayaa u bareertay nolol iyo geeri si ay ula midowday jacaylkeeda iyadoo ka doorbiday dalkeedii shaqadeedii iyo dadkeeda waxa hogaaminaya waa jacayl miyaa la xakameyn karaya lamaanahani waxay sugayaan in loo masaafuriyo loona gacan geliyo dawladda Switzerland oo ah halkii ay ka soo baxsadeen inkastoo xukun adag ay lamaanahani wajihi karaan haddana jiriya hadda jooguhuba aadmigu way isjiirayaan haddana laba jacayl dhexyaal sinaba uma kala jarmaan jiriya hadda jooguhuba aadmigu way isjiirayaan haddana laba jacayl dhexyaal sinaba uma kala jarmaan